Kuuriyada Waqooyi waa mid ka mid ah dawladaha dhacbariga Aasiya. Caasimadeedu waa Pyongyang, hogaamiyaha dalkana waa Kim Jong Un. Lacagta laga isticmaalana waa won. Go'aanada uu qaatana waxaa gundhig u ah awowgiisa iyo waalidkiisa. Waxayna diiradda saaran sidii iskaga difaaci lahaayeen hogaamiyaha dalka Mareykanka ee Donald Trump. waxaana soo bandhigi doonaa waxyaabaha gaarka uu leeyahay Kim Jong Un. waxaana maanta fiidiyogan aan uga sheekayn doonaa waxyaabaha gaarka uu leeyahay Kuuriyada Waqooyi, taasoo ay daabacday wakaaladda wararka Faransiiska ee Soomaali Salvador. Kim ayaa reerkiisa taariikh weyn waxay ku leeyihiin waqooyiga Kuuriya, taasoo muddo xigtay ilaa iyo 3 ay soo xukumayeen dalkaasi. Kim wuxuu dhashay 8 January 1982. madaxweynaha maanta aan ka sheekaynayno waa Kim. waxa uu qabtay xukunka sanadkii 2011. raiiskiisna waxaa lagu qiyaasaa 130 kilogram. waxaana qabaa cudurka macaanka iyo dhiigkarka sida waalidkiisa oo kale. Kim waxyaabaha hibada uu Ilaahay u siin waxaa ka mid ahayd inuu gaari kaxaynta bartay isagoo 3 jir ah. wuxuuna bartay habka loo dejiyo istiraatiijiga isagoo da'da 16 jiro. Kim khudbaddii ugu horreysay waxa uu jeediyay 15 January ee sanadka 2012, taasoo ku beegnayd xafladda dhalashada sanadkii 100 ee awowgiis, taasoo awowgiis ka soo wareegatay xilliga xukunka uu ka degay 17 sano. Kim ayaa lagu eedayaa inuu yahay diktaatoori sida awowgiis iyo waalidkiisa ka horreeyayba, isagoo dariiqada iyo hababka nidaamkooda dib u raacayo. xukunnada uu fuliyay Kim ayaa saameyn waxa ay ku yeelateen xitaa qaraabadiisa. waxaa ka mid ahaa adeerkiis oo xukun dila uu ku fuliyay. sidoo kale Kim waxaa lagu eedayaa inuu saameyn ku lahaa ama uu ka dambeeyay dilkii walaalkiis loogu geystay Malaysia Kuala Lumpur. sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Faransiiska ee Soomaali Salvador, macallimka wax ka dhiga Kuuriyada Waqooyi wuxuu qaataa bishii 80 senti, halka qofka cuntadiisa bishii ay ku aadayso $40 ilaa $50. waxaa sii dheer in dhammaan dadka Kuuriyada Waqooyi ku nool ay ku nool yihiin xaalad aad u adag. qoyska dhan ayaa waxaa laga yaabaa in ay ku nool yihiin guri cabirkiisu gaaraya 5 biyaha caadiga ee laga cabo ee nadiifkaana waxay yihiin kuwo aad ugu yar, waana midda shacabka reer Kuuriya ku kalifayso inay u tahriibaan dhammaan dalalka xuduudaha ay la leeyihiin sida China. sidoo kale wakaaladdu waxay ka sheekaysay xaasaska uu leeyahay Kim Jong. xaaska koowaad ayaa ah Ri Sol-jo, taas oo ay ugu raacda meel walba uu aadayo madaxweynaha. waxayna qaadataa boorso lagu qiyaasay qiimaheeda $1,500. waxayna ku socotaa gaariga nooca loo yaqaano BMW. xaaska labaad ee Kim ayaa lagu magacaabaa Yu Jong, taas oo abaabusho ama isku aadiso xafladaha lagu maamuusay madaxweynaha. sidoo kale wakaaladda waxay caddaysay Kim ayaa diktaatornimadiisa waxay tahay mid cad, taasoo inta xukunka uu la wareegay 2011 xabsidu u dhaadhiciyay 180,000 oo shakhsi. mucaarad gaaraya 20,000 ayaa dalka Kuuriyada Waqooyi dibaddooda ku nool, taas oo fariisimaha ugu weyn ay yihiin Kuuriyada Koonfureed. ugu dambeyntii, sidoo kale wakaaladda waxay sheegtay tijaabadii ugu horreysay ee nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ay samayso inay guulaysatay sanadka 2016, taas oo culayskeedu uu gaaray 25 tan, oona lagu qiyaasay in 2 jeer ay ka weyn tahay qumbuladii lagu tuuray Hiroshima ee dalka Jabaan. Kim waxa uu isku dayaa inuu farsameeyo kuwo ka tandhaadheer ama kelid dheer, kuwaas oo gaarayo dalka Mareykanka si uu iskaga difaaco uuna uga dhigto gaashaan. hadafka Kim Jong Un ayaa ah in Kuuriya ay noqoto wadamada ugu awoodda badan ee dunida. haddii fikir iyo wax dheeri aad hayso aad is leedahay barnaamijku way ka dhiman yihiin, waad noogu soo gudbin kartaa iyo mawduuca aad danaynayso. assalaamu calaykum.